wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb tababar ugu soo xirtay xubno ka kala socda hay'adaha dawladda, ururada maxalliga ah iyo ururada bulshada, waxaana tababarkan uu ku saabsanaa ballaarinta arrimaha deegaanka iyo maamul daadejinta arrimahaasi. Tababarkan ayaa si gaar ah ugu qotomay sidii kor loogu qaadi lahaa maamulka deegaanka ee Galmudug, iyadoo ka qaybgalayaasha laga dhageystay soo jeedintooda la xiriirta sidii loo samayn lahaa isku xirnaan dhab ah iyo wada shaqayn wax looga qaban karo xaaladda jirta. sidoo kale linkage marka waxa ka shaqeynayo wasaaradda dastuurka, wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda dastuurka waa in la sadgalayaa penalties haddii geed la jaro qofkan geedka wuxuu ku bedelo lahaa waa loo sameeyay 1 2 3 geedka uu markaa sameeyso si uusan berinta ku dhaxan ku bedestaa geedka aan ku manfaacsadaa marka haddii la arko marka soo geedkii damage gareena in la qaban karo oo dhigi karo xeerkaas lagu siiyay saas lagu yeelay way u jiraysaa geedkan xidhir ahaa ee ummadda manaafacaad u lahaa ama dhulka manaafacaad u lahaa waa goynay. waxaan samaynay wax kasta oo dhibaato nolosha aadanaha ku noqon lahaa marka la fiiriyo bee'ada inaan u fududaano, inaan u dayacnaano nolosha dadka qaarkood waxa way daruuftaa ku kalifaysa waxay cunaan iyo waxay ku noolaadaan inta waayaan dhuxul soo jaranaya. haddana ay yani soo rogto wasaaradda environment ay soo rogto ciqaab waxaas cidii ku xadgudubta oo saas samaysa intaas ciqaab ay leedahay qoran waliba baarlamaanku baasgareeyay oo haddii la soo qabto yani booliska loo diro la soo qabto la yiraahdo dadkii dhirta guuraayo kala tusaale ahaan la soo qabto ama kawaanka xoolaha ma garanaysaa meel kasta dadka wax ku kawaanayaan yani la arko meelta loo sameeyo yani ku xadgudba waa in dhaqaale ka imaado asagana la ciqaabo si dib dambe ugu imaan. tababarkan oo qabsoomidiisa ay wasaaraddu la kaashatay hay'adda UNDP ayaa si rasmi ah waxa uu daahfuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga Galmudug Cabdifataax Cagayare. marka wasaaraddu mar walbeeto waxay ku dhisan tahay taladay ku dhisan tahay si maadaama dadka iyagu environmentiga marka laga hadlayo aad ay mataqaanaa ugu hooseeyaan ay u baahan yihiin waqtiyo badan iyo wacyigelin badan iyo shaqo tiro badan ay u baahan yihiin haddana in maskaxdu iskaashato la wada shaqeeyo fikirka la aruuriyo ayadoo aqoon buuxdo la isku keenay oo laga wada warqabo midaysan lahayo in bulshadii mataqaanaa loo daadajiyo. marka mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada aragtidiina iyo fikirkiina iyo taladiina iyo aqoontiina ilaad mataqaanaa ku kaabtaan barnaamijka wasaaradda aan rajeynayna haddii ilaahay idmo waa shirkuna waa inoo furan yahay waana in kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan mar labaad baan kaga mahadcelinayaa aad uga soo qayb gasheen. soo dhawaada wasaaradda deegaanka wasaaraddiini waaye mar walbeetana in talada la mideeyo oo arrimaha deegaanka aan xoogga saarno dhammaanteen bay wax u taraysaa deegaankana muhiimad gooni u leedahay. wasaaraddu runtii environmentiga dhibaatooyinka badan oo ka jira oo deegaankii la xaalufinayo geedihii mataqaan ayadoo la xaalufinayo hawaaladii la laynayo ugaartii wax caqabado tiro badan aad u tiro badan baa ka jira. waxaasoo dhan waa wax u baahan bulshadayadu fahan la'aan baa jirtee inaan annagoo midaysan aan ka wada shaqaynastaan u gaarsiin lahayn haddii ilaahay. Cabdullaahi Warsamo Roble, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.